shabaab iyo waxa soo haray daacish iyo inta la halmaanta su'aal baan idin weydiinaynaa billahi calaykum midin tirsayin inta disheen tirahan kaliya mu taqaanaan inta ruuxu disheen waxaad ku disheen ma garanaysaan ma xaq baa ma baadil baa ma mudnaayeen inay dhintaan xadiis bay daliishadaan waxay yiraahdaan thumma la yub'athuna ala niyyatihim Aisha waxay tiri nabiga wuxuu sheegay salawaatullaahi wa salaamu calayhi ummad soo socoto oo meel bannaan oo Maka agteeda lagu rogi doono oo suuqlaydoodii iyo kuwii soo duulay iyo kuwii inkaarta qabayba waa la isla rogi doonaa kaasa waxay tiri rasuulallah oo kuwaas masaakiinta oo aan dagaalka ku jirin oo meesha lagu leeyay xalkooda noqonaya waa la rogayaa buu yiri niyadoodana lagu soo saari doonaa shabaabku markay dadkan laynayaan tarabta u laynayaan xadiiskaasi daliishadaan laakiin xadiiska wuxuu ka hadlayaa musiibo xagga rabbi ka soo dhacday xadiisku ka hadli maayo in dad bini aadan oo jira ay iyagu musiibo noqdaan oo marka intay dadka soo laayaan ee ilaahay u diraan yiraahdaan ilaahu intaas ku soo dilay adigu kala saara kii fiicnaa kii xuma adigu ma fiicanta sida u dish xagaysa ka timid fiicnaanta ummadda lagu kharibayo lagu laynayo amnigeeda lagu baalkeenayo waxaad ku jirtaan oo samaynaysaan ummadda cadawgeeda u nugleynaysan bikulli ma fi al-amri wa anta haddaydan cadawga la shaqaysanaynin sida tan ummad looguma heeliyo kuwa la soo qalday aaminsan wuxuuma ummadda ka qaldan ee waxaan rabnaa inaan wax u hagaajino war qofkaad wax u hagaajinaysa hadaad disho maxaad hagaajisay billahi alayk yaad wax u hagaajis aqligu inta ma garan waay alaysa minkum rajulun rashid wana wax kala garanayay kuma jira miya maskaxda xageed baad la aadeen kuwa culimada sheeganaya ee culimo usuuga ee zuurka iyo buutaanka diinta uga been sheegayo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada waxaad ilmaha ku qaldaysaan ka fiirsada waxiidan ubadkiina u dirteen ilmo Soomaaliyeed ha u dirina ilmaha aad baad iyo zakada u qaadanaysaan waxa sujihaadka nabiga ma aha sallallahu wa sallam alayhi su'aal kale idin weydiinaynaa intaad aqoontaysan midin tirsan tahay oo dayac ku nool oo aabihi masruufayay aad waxa weeye qarax ku disheen ama madax jabis ku disheen ama maxaa la yiraahdaa ii sheeg aad waxa weeye dhibaato kale ku disheen dhaawac ku disheen midin tirsan yihiin intaad hooyo disheen oo ilmaheeda rajo ka dhigteen midin tirsan yihiin intaad labada isugu darsadeen midin tirsan yihiin inta aad oday iyo hooyo waayeel aad gablan ka dhigteen midin tirsan yihiin inta u waalatay taraawmadii ay ka qaadeen qaraxyada iyo dilka iyo gubitaanka midin tirsan yihiin billahi calaykum su'aal kale maxaa guulood ka gaadheen maxaad xaqiijiseen waxa ummadda ay ku naaloon karto ka dhaxeeya maalinka maanta oo aynu ku wada faani karno oo u soo noqday caayidka waa maxay aan ku wada faanoon idinka mid noqonee noo sheegay guusha mise waxaad doonaysaan guul darro iyo geeri kaliya ummadda dhan ka wada shaqayso ta maxaa ku weliya kuwa idinka dhexdiina aad iska disheen maxaad ku disheen markay idin la jireen maxay ahaayeen markay ay dhibanayeen maxay ahaayeen maxaad cuskateen looma shaqayn karo wax dil kaliya in loo shaqeeyo aba wax loo dilo just dil baan wax u dilayaa waxaan dirayaa wiil aan qaan gaarin qori baan u dhiibayaa maxkamadii waa isaga ma tukada hadduu doono qaadku cunaa ciyaar suuqnimo kale ku jira xoogaa baa loo dhiibayaa waxa la leeyahay dadka ummadda indhaha waa soo la baa la leeyahay waxa xageebay diin ilaahay kaga taala waxaas haddii ay wuxuuna yihiin waxaan islaam ahaynba waa lagu sheegi karaa maafiyanimo burcadnimo tuuganimo fulaynimo bahalnimo wax kastoo xun ku sheeg waxaan islaam ahayn waa lagu sheegi karaa su'aal kale idin weydiinaya mis weydiiseen fidnadan intaydan bilaabin inta ciidan oo shisheeyo wadanka joogtay iyo inta fidnada bilowdeen inta ciidan oo shisheeyo oo timid oo ku timid idinka fadligiina iyo shaqadiina xun mis weydiiseen inta qaxday mis weydiiseen intaas inta ka gaalowday mis weydiiseen inta ka inxiraaftay mis weydiiseen inta badaha ku dhamaatay iyo banaanada iyo waxa la yiraahdaa saxarayaasha carar iyagoo idinka jira inta reero kala loo mis weydiiseen idinka daraadin masawirkan laga qaatay wadanka ee foosho xun ee aad ku haysaan mis weydiiseen masawirka midna anfacaya haddaad siyaasad doonaysaan walaalayaal meesha loo marayay siyaasaddu taas maaha wadankeena siyaasad xun oo idinka noociina aad ka wargeli kartaan waa leeyahay laakiin dariiqad martaan dariiq lagu gaari lahaa ma aha laakiin waa la helayaa mid kuwa capacity-ga kala ah ay ku jiraan gala dariiqeeda soo mara qabaa'ilkiina soo dhaxmara ilaa qoriga mawgi
fikir qaldan waa qabi kartaan ummadda isa sixi doonta kuwa kale oo qaldan ba waa jiraan laakiin waa ku dilayaa هذه فرعونية بعينها قرنيسا فرعون بمحولها وإذن دليا قرطة إنك قوينيا مربع لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو سلمنكم أجمعين آمنتم له قبل أن آذن لكم ما واحد رميس موسى ونذير يدمن هذه فرعونية إسلام ما هو رليا وحنا باقينا إلهنا كباغدان ummadaas aad indhaheedii rideen indhaha la idinka ridiye idinkuma harin dil iyo dagaal ayadoo sida aad u geysateen baa dadkanu ay yihiin dad sabir badan oo ay diyaar u yihiin inay hore u sii socdaan oo ay ka gudbaan waxaad badeen oo ay diyaar u yihiin inta ilmahooda ah oo la qalday oo idinka haddaad toobad keentaan oo soo laabataan inay idin aqbalaanoo meeshaad ummadda ka geli kartaan aad ka buuxisaan laakiin sida hadda aad ku jirtaan sidin bixinaysa maaha adduuniya aakhiro waxa aad doonaysaan si aad ku gaaraysaanna maaha berrina waxaa la arki doonaa shabaab iyo gaalo is wata oo ka tarjumaya waddanka gebi ahaantiisaba in la qaato ummadda waxaa la gudbaan marka inaan waxaa loo dhaafin ummadda laga qabto sheekh cabdinaasir dilkiisa astaan wuxuu yahay inaan cid cafisa aanay jirin ma tukataa salaada ma taqaanaa wax ma qori kartaa ummadda intaasaa lagala dagaalamahayaa qandaraaskana cid kale laga soo qaatay saa darteed haddiiba lagu iman doono hadda dagaalka sii gal ciddii gaaraba iyo gaashaan kugu noqon karta sii kaasho maamuladeena yaryarka aan boorka ka jafanno nimanka axad ha loo yeelo cadow ka daran ummadda soomaaliyeed ma dhex joogo